أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى waxaan halkan aan maaragtay haddii alla idmo aan ku bilaabe sidii ballantuba ay ahayday kitaabkii la dhihi jiray caqiidatu daxaawiya. caqiidadan la yidhaahdo caqiidatu daxaawiya waa caqiida ahlu sunnaha ay isku raacsan yihiin. ahlu sunnahoo dhan baa isku raacsan. waxa weeye caqiida aada muhiim u ah in laga warqabo oo la barto. imaamka la yidhaha abu jacfar addaxaawi ayaa maaragtay soo guuriyey oo fuqahadii diinta ka soo raray, fuqahadii diinta islaamka yuu ka soo raray sheekh raxmatullaahi calayhi. kitaabkan marka ahlu sunnaha afarta madhab mutafaqay isku yihiin. jamaacad kaleo iyaguna ahlu sunnaha laftooda sheegta oo yidhi ahlu sunnaha ka mid nahayna way ogol yihiinoo cidaan ogolayn ma lahan. marka waxaa weeye kitaab aada muhiim u ah. insha allahu marka ilaahi nagu anfaco subxaanahu wa tacaala. haddana waan bilaaban doonaa. waxaana ka bilaabay haddii alla idmo tarjamada sheekha iskale kitaabkan. aan wax yar haddii alla idmo anigoo aan ku fogaanayn yaan ka leeyahay. sheekha kitaabka iskale waxaa la yidhahdaa abu jacfar addaxaawi. waxaa weeye magaciisa axmed ibnu muxamed ibnu salaama la yidhaahdaa. axmed ibnu muxamed ibnu salaama ibnu cabdilmelig ibnu salama ibnu sulaym ibnu sulaymaan aa la dhahaa. waxaa weeye sheikhu waa shiikhu waxaa weeye asdi weeye. asdigaasuna waxaa weeye nima la yidhaha asd alxajri oo waxaa weeye xajrigaasna waa qolo reer yamaneeda ayuu sheikhu u dhashay raxmatullaahi calayhi. imaam xaafidoo weyn wuxuu ahaa aimada islaamka ka mida. waxaa leysku raacay sheikha raxmatullaahi calayhi dayaanadiisa iyo maxay ahayd tale imaamnimadiisa waa muttafaq cinda ahli sunna waljamaaca. wuxuu sheikhu zaman la ahaa raggan kutubta umahatusitada iska leh yuu isku waqti ahay. waa arki doonaa sheikhe nin aada maaragtay loo cumri siiyo u ahaa. da-diisa markaad fiiriso ka ogaanaysaa. rag xataa ragga sunanta ka mid ah ay isku shiiq yihiin oo maxay ahayd ay isku shiiq wax ka wariyaan. marka sheikhu raggaa salafka ayuu ka mid yahay. raggaa salafka ayuu ka mid yahay. imaam faqiiha ayuu ahaa. marka wuxuu iri macnaha marka waxaa la yidhi sheekh raxmatullaahi calayhi marka sheikha magaciisa sidaasaa la dhahaa. daxaawi waa magaalada sheikha uu nisba sheegto oo magaala yidhaha daxa oo saciidi misra ku taallo weeye. imaam faqiihoo fuqahada xanafiyada ka mid a ayuu sheikhu ahaa raxmatullaahi calayhi. waxaa la dhalay sanadkii wuxuu dhashay sheikh raxmatullaahi calayhi 229 yaa culammada qaar ay yidhaahdeen. qaar kalena adiga si kale u sheegeen oo dhowr iyo 30 iyaguna dhaheen. sheikha marka raxmatullaahi calayhi qolaa waxay dhaheen wuxuu dhashay 930 iyo 230 ayuu dhashay. wuxuuna dhintay 321 sheikha marka raxmatullaahi calayhi wuxuu cilmiga ka bartay oo aad wax u baray. waxaa aada wax u baray sheikha raxmatullaahi calayhi oo uu ku tafaquhay abtigiis imaamulmusani. imaamulmusani ayuu sheikhu ku tafaquhay. kadibna imaamulmusani waa la yaqaano waa ardaygii imaam shaafici. kadib sheikha madhabka shaaficiyada wuu ka wareegay oo calaa madhab imaam alxanafi
ayuu maaragta imaam abi xaniifa calaa madhabi alxaniifa calaa madhabi maaragta alxanafiya ayuu shiikhu markii dambe yuu ku ahaa oo a'imada waaweyn oo xanafiyadu ka mid yahay shiikha marka intaa markaan uga gudbo kitaabkan a'immadeenna waxay ka yidhaahdeen haddaan wax yar ka idhaahdo imaamka la yidhahdo taajuddiin asubki kitaabkiisa la yidhahdo muciidu nicam wa mubiidu niqam kitaabka la yidhaahdo waa kitaabkan waay waa kitaabkaas wuxuu leeyahay sheikha markii uu ka hadlayay daxaawiyada iyo raggaa kaloo ahlu sunnaha wuxuu yidhi وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله الحمد في العقيدة يد واحد كلهم على رأي أهل السنة والجماعة وحوري حنفية شافعية مالكية حنابلة إلهي بقى مهد إسكاله عقيدة وحوري وكم ديسينه لما أنتظر رأي أهل السنة والجماعة يقبان إلهي بي طريقدي شيخ سنة أبي الحسن الأشعري بي طريقدي سي إلهي ماركتا أقدين يلنا يانو دبان حورو سداس بركاسور لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال والرعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم بور إلا هدي لغا بور حوغا حنفية شافعية أو معتزلة نقضي بور معتزلة هلا iyo wuxuu ri xoogaa xanaabilaahoo macnaha rucaacda amba raacaacda waxaa weeye ragga iyaga markaas aan raggaa waaweyn oo aimada ajilada aan ahayn qolo qaybaha hoosaaho wuri oo waxaa jiro wuri iyagu muctasilo raacay iyo maaragtaa qolo oo xanaabilaahoo iyaguna ahlu tajsiimka raacay buu wuri oo racaacdaas ahaa jira wuxuu ri marka shiiku wabara allaahu almaalikiyata falam nara maalikiyan ilaa ashcariyan caqiida buu wuri wuxuu yidhi ilaahay maalikiye waa beri yeelo oo anagu ma aanan arag buu yidhi maaliki ilaa wuxuu ahaa buu yidhi nin sunniyaho ashcariya buu ahaa buu markaasu wuxuu yidhi sheikhu waljumla wabiljumla buu yidhi wabiljumla anaa hadal tafatiran baan ku leehay wuxuu yidhi caqiidatu alashcariyi hiya maa tadamanathu caqiidatu abi jacfar الضaxaawi alatii talaqaahaa culamaa'u اlmadhabi bilqabuuli waraduuhaa caqiidatan sidaasuu yiri waraduuhaa caqiida wuxuu yidhi hadal markaan ku dhamaystiro war hadal caqiidada imaamulxasan alashcari wuxuu yidhi waxaa weeye wuxuu yidhi caqiidada ashcari buu yidhi imaamulxasan alashcari caqiidadiisa waa waxa caqiidada abi jacfar addaxaawi ay koobtay weeye buuri waxa dhaxaawiya ku qoran ayaa noo caqiidaa howri sheikha taasoo culammada madaahibta dhan ay qabuul ku qaateen caqiida ahaanna ugu raadlin noqdeen buuri markaasuu sheikhu wuxuu waqad khatamnaa kitaabanaa jamca aljawaamic bicaqiidatin dakarnaa ana salafa alummati calayha wa hiya wacaqiidatu daxaawiy wacaqiidatu abilqaasim alqushayri iyo caqiidada murshida la yidhaahdaba waxaasoo dhan usuulu ahli sunna bay wadaagsadaan buuri xataa sheikha jamculjawaamic oo qaybta dambe wuxuu ku qoray caqiida midaan daxaawiyada lamida ayuu yidhi oo sidaasoo kale ah caqiidadii islaamka khaasatan ahlu sunnaha ay ku midaysnaayeen oo tan daxaawiyaday lamid tahay buuri midaan daxaawiyadana hadda maba la isku khilaafsanaba marka caqiidadan waa caqiida noocaasa oo jamaacaad kala duwan amba ahlu sunnana afka ha ka yidhaahdeeno amba run ha ahaadaano ay isku waafaqsan yihiin laakiin dhibka jiraa wuxuu yahay ragle waan isku waafaqsannaha ad arkaysaayo intay akhriyaan haddana darafaha ka jiidaayo oo dhinacyo kale u leexinayo oo si kale u qasaayana waad arkaysaa saasna ma haboono oo ma fiicno waxaa la rabaa qof walbaaba inuu xaqa ku dadaalo wey marka intaasna warkii alimaam taajuddiin asubki ayaan uga baxay raxmatullaahi calayhi kitaabkiisii la dhihi jiray maaragtay muciidu nicam wa mubiidu niqam waxaa marka insha allahu tacaala intaanan u gudagelin fannigan maxay ahayd kitaabka intaanan u gudagelin yaa xoogaa fannigan baan waxaan mabaadidiisa fanni walbaaba wuxuu leeyahay aasaasiyaad uu leeyahay aasaasiyaadkaasaan haddii alla inu waxyar ka hadli kadibna madniga daxaawiyadan u gudbi doona haddii alla marka waxaa jira waxoogaa yaroo iyaduna
ku baraarujin ku fiicnaado hadda imaamu taajuddiin subki raxmatullahi caleyh wuxuu yidhi maaliki oo dhan wuxuu yidhi ashaacire ahaa sheekha inta uu ka warqabay sida u arka wey laakiin shaksi mujasimada raacayna wuu jiraa oo culummadu ay sheegaan sida ninkii la yidhaha abu camar adalamanki iyo ibnu abi zamanayn iyo ibnu khuways mandaad wadaad la yidhaahda laakiin ibnu cabdilbari iyo macnaha ibnu abi sayd alkhayrawaani iyo iyagu raggaasi waa rag wanaagsan wey maaragta oo waxyaabaha loo nisbeeyana qaarkoodna iyagoo khilaafayaad arkaysa oo toos uga tegahayo marka adiga kulleyba qaarna sida loo fahmay ayaa qaldan laakiin raggaa hadda aan sheegay oo ibnu abi zamanayn iyo ibnu khuways mandaad iyo abu camar adalamanki iyaga nimanka xagga tajsiimka ee ula badatay inay ahayn bay culummadu sugaan marka fannigan marka caqiidada markaan mabaadidiisa wax yar aan ku noqdo waxaa jira mabaadi 10 oo asaasiyaad ahoo qofka markii uu fanniga ka barto oo uu ka ogaado xaggiisa isagoo calaa basiiratin ahoo wixii huba markaas ee fahamsan uu gelayo sheekh la yidhaahdo almaqari oo iska leh kitaab caqiida ahoo dhowr boqoloo bayd ahoo isaguna aimada shaacirada ka mid ah jira oo muqadimadiisa kitaabkaas yuu uga hadlay mabaadidaasoo wuxuu yidhi man raama fannan falyuqadim awala cilman bixaddihi wa mawduucin kala wuxuu uri wawaadicin wa nisbatin wamastamad minhu wa fadlihi wa xukmin yuctamad wasmin wamaa afaada walmasaa'il fatilka cashrun lilmunaa wasaa'il wabacduhum fiiha cala albacdi iqtasar waman yakun yadrii jamiicaha intasar wuxuu uri sheekh raxmatullaahi calayhi ina mabaadii kulli fanni 10 waa taqaanay tii ay lamid tahay un kulley wuxuu uri ninkii fanni dalba ha hormariya marka hore ogaashada xadka fanniga inuu ogaado tacriif maa huwa muxuu yahay maxaa loo dejiye mawduuciisu muxuu yahay yaa dejiye oo maaragtaa cilmigaas u horreeyey oo raggi curiyaa haddii culumta kale loo nisbeeyo culumta kale markii loo nisbeeyo muxuu u noqon ma farac baa ma asal baa ma culumta kale uu ka duwan yahay sidaas xaggee laga soo qaatay oo asal u ahoo lagala soo baxay fadliga iyo derajada uu leeyahay xukumka shareecada islaamka ay ka qabto fannigaas magiciisa waxa qofka barta uu ka faa'iidaysanayo waxa looga hadla waxa ay yihiin masaa-isha waxyaabahaasaa laga hadlaa marka fanniga markii la tacriifiyo tacriif badan ayuu leeyahay culummada siyaabo kala duwanoo badan ay u tacriifiyeen qaar waxay yidhahdeen waxaa weeye cilmun yuqtadaru bih calaa ihbaati alcaqaa'idi addiiniyati min adilatiha alyaqiiniya waxay dhaheen waa cilmi caqiidada diinta adiladeeda yaqiiniyada in laga sugo lagu awoodo weeye markaad cilmigaa barato cilmigaa markaad taqaan caqaa'idda diinta islaamka ayaa adilada yaqiiniyada ah inaad ku sugto ayaad awood u lahaanaysaa adiga tacaariiftu way badan tahay qaar culamada kamid waxay ku tacriifeen waxay dhahaan huwa alcilmu biaxkaami aluluuhiyati wa irsaali اrusuli wa sidqihim fii jamiici akhbaarihim waa cilmi lagu cilmi lahaado axkaamta ilaah subxaanahu wa tacaala axkaamta ilaahiyada oo iyo rususha diristooda iyo rususha inay runta ku sheegeen wixii ay khabreen oo dhan waa sidaas marka cilmigan mawduuciisa wuxuu ku saabsan yahay muxuu ka hadlaa cilmigan mawduuciisa waxaa weeye daatullaahi tacaala min xaysu maa yajibu lah wamaa yastaxiilu calayhi wamaa yajuusu fii xaqih waa daatada allah subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay waajib oo ahoo la rabo in qofka muslimka uu ka caqiideeyo waxa mustaxiilka oo ilahi subxana wa tacaala aanu cunan waxa ilaahi subxana wa tacaala xaqiisa ku bannaan iyo wadaatu rusul kadalik iyo rususha iyaga laftirkooda
wixii rususha u sugnaaday inaad barato oo ay muteen waxaa ka mustaxiilka ahoo mamnuuca ka ahoo qofti ka caqiidaysa xataa uu diinta ka baxayo iyo wixii xaqooda ku bannaan iyo waxyaabaha kaloo mumkinaadka ah iyagana in lagu ogaado oo iyadoo laga fiirinayo oo lagu gaarayo alla subxaanahu wa tacaala jiriddiisa maxaa yeelay qur-aanka in badan wuxuu leeyahay koonka in la fiirfiiriyo u amrayaa oo sheegaa marka taasna isagana waa ka mid ay tahay wey marka mawduuca marka cilmiga waa kaas mawduuca cilmiga marka cilmigan waadiciisa marka cilmiga waadiciisa adiga hadal badan baa ka jira cidda cilmigan dejisay laakiin marba nadariyad wey marba jiha marka la eego horta cilmigan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa dejiyey oo qur-aanka kariimka iyo axaadiida oo labaduba waxyi nebiga loo waxeedo ay yihiina laga qaataa waa sidaas marka ha laga qaatee waxaa jira rag marka qawaacid u sameeya baa jira marka haddii dhinacaa qawaacidda laga fiiriyana raggaasay u nisbeeyaan haddii hadda asal ahaan meesha laga soo qaadanayo la fiirsana adiladaas yaqiiniyadaana hadda waxaa weeye maaragtay marka waadica sidiisa dhanba waxaa la yidhaahdaa man kataba alqawaacid alcilmiya lidalika alcilm qofkii qawaacid cilmiya cilmigaas u qora wamayaza maraatiba masaa'ilihi masaa-ishiisa derajooyinkeeda kala sooca oo shayga dakhiilka oo fanniga aan ka mid ahayn kutubtiisa ka saara oo mujmalkiisa sharxa wa sharaxa mujmalaatihi wa faka mucdilaatihi masaa-isha caweyska oo mushkilaadka fakiya oo sharxa mudlaqaadka qayda wixii mudlaqa oo faham guud laga qaada lahaa ka qayda waxyaabaha maaragtay mubtadacaadka ahe lagu soo kordhiyo oo aan shaqo ku lahayn oo aan diintuna ogolayn ka ridiya oo kelimaadka macaanidooda suga xaqiijiya wixii xaqiiqa iyo wixii majaasa kala caddeeya oo fanniga lagu isticmaalo waxyaabahaas oo algaasta fanniga meesha ay ku jiraan kasoo saara wixii algaas camala waxaas dhinacaa markii laga eegana oo cidda saa u taxriirisa la fiiriyana waadic waa la yidhahdaa marka dhinacaa markii laga eego waxay dhaheen culummada labadan imaam oo ahlu sunnaha waa alimaam abulxasan alashcari iyo sheikha la yidhaahdo abu mansuur almaturidi ayaa markaa waadic la leeyahay waa sida alimaam sheikhulislaam ibraahim albayjuuri kitaabkiisa tuxfatulmuriidka uu ku yidhi marka meesha cilmiga marka lagala soo baxa cilmiga meesha laga soo qaatana waa la isu sheegaa meesha laga soo mustamadka marka cilmiga mustamadkiisa waxaa weeye mustamaduhu min sawaadici الnuquuli wa qawaadici اlcuquuli amba waxaad tidhaahdaa mustamadkiisa waa min baraahiin اlyaqiiniya wاlqawaadici الnaqliya hadba sibaa loo leeyahay laakiin waa isu imaanahay waxaa lagala soo baxay nuquusha waa macnaha hadda waa qur-aankii axaadiisii kuwa maaragta laga soo qaatay oo nuquushii sawaadicdeedii cadcadeeday iyo cuquusha qaadicadaha marka cuquusha qaadicadaha waxaa laga wadaa caqliga laftirkiisa qeyb weyn oo ka qaataa bani aadamka maxaa yeelay intaa hadda nebiga lasoo dirin gaalada markii la yidhaahdo samaawaadkan iyaa abuura allay lahaayeen allah abuuray dhahayeen ha dhahaanee hadda koonkan iyo waxaanay arkaan bay ka adilo qaateen marka caqligu laftiisa kama marno oo hadda nebiga inuu rasuul yahaba caqligaagaad ku garan qur-aanka markaad dhegaysatay inuu kalaam ilaahay yaha caqligaagaad ku garan mooye caqliga intaad meel dhigato inaad qur-aanka garan karta ma ahan qur-aanka caqliga waxaa la rababa oo cidda la haystaba waa cidda caqliga leh oo la raba inay caqligaada waxa ku fahmo marka caqliga ma ahan in si laftirkiisa garaadada laga rifa ma ahan sidaas oo xataa waxaan ilaahay u cunan min haddii qole ay soo wariyaan sidii maaragta ragga qaar ilaahay inuu koba leeyahay iyo riwaayad ay ku sheegeen wax saas oo dhulka dadka uu ku salsalaamaya iyo wax noocaasa haddii lasoo warsho xataa waxaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala oo khalqiga toos khalqiga lagu shabaho taas inaan maaragtay laga dhegaysanayn haddii ay qola warshaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maxay ahayd maalanba waxaan allah u cunay nin ay dhahaan ilaahay inuu waashaa ka suurowdo hadday qola kuusoo warisa ka war wax noocaasa oo kale marka caqliga
waa shaqaynaa laftiisa laakiin waa inuu nuur ka dhigto u iftiinsadaa kitaabka alle subxaanahu watacaala inuu iftiinsadaa laga rabaa iyo sunnada nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh. marka nisbada culumta kale markii loo nisbeeyo fannigan waa afdal waxaa weeye culumta asal asaa u ah waa ashrafuhaa wa afdaluhaa haddaad tirahda wa acdamuhaa amba aad tiraahdeed huwa aslu culuumi weeye waa kaas fadligiisana aad buu u weyn yahay xagga fadligiisa maxaa yeelay daatada alle subxaanahu watacaala ayuu ku tacalluqayaa. magaciisa marka magaciisa maxaa la dhahaa maxaa lagu magacaabaa cilmigan waxaa la yidhaha cilmu tawxiidaa la dhahaa cilmu tawxiid ayaa la yidhaahdaa cilmu usuuliddiinna waa lagu magacaaba mar waxaad arkaysaa cilmulkalaam la leeyahay waad arkaysaa cilmulcaqaa'id waa la dhahaa adiga magacyaashaas ayuu leeyahay cilmigan markii magaca laftiisa la sheegana waadba ka garanba meesha uu ku socdo. waxaa jira marka maxaa laga faa'iidaystaa mirihiisa iyo tamartiisu maxay yihiin mirihiisa iyo tamartiisa waxaa weeye macrifatullaahi subxaanahu watacaala ilaahay inaad garato subxaanahu wey wa macrifatu anbiyaa'ihi wa malaa'ikatihi calayhim asalaatu wasalaam malaa'igta iyo nebiyaasha alle calayhim asalaatu wasalaam inaad barato oo aad garato ilaahay subxaanahu watacaala aad garato iyo walfawz bisacaada alabadiya inaad ku liibaanto liibaan joogtaah oo abadiyaah oo abad loo nisbeeya aad ku liibaanto wey. masaa-ishiisana fanniga masaa-isha looga hadlo waxaa weeye waa qadaayaahu alatii yubxathu canhaa min alwaajibaati waاljaa'izaati wاlmustaxiilaat. masaa-isha waxaa weeye masaa-ishiisa waa waxa lagu baxdiyo weye qadaayaadka waa isla masaa-ishii lagu baxdinayey oo waajibaad leh oo jaa-izaad leh oo waxa mustaxiilaadka ale masaa-ishiisina waa taas amba waxaa la yidhaha qadaayaahu albaaxitha can alwaajibaati waاljaa'izaati wاlmustaxiilaat. masaa-ishii baxdinaysay waajibaadka wixii waajibaada oo ilaahay u sugnaaday wixii ilaahay subxana watacala xaqiisa ku baraan wixii xaqa alla mustaxiil ku ah oo ilaahay subxana watacala aan u cunanin iyo sidoo kale maaragtay aakhirada bacdiga iyo xisaabka iyo waxyaabaha samciyaadka la yidhaahdo waxaasoo dhan baa looga hadlaa. marka insha allahu intaas ayaan qeybtaasna uga bixi haddana kitaabkii ayaan maaragta toos ayaan u gudagelayaa nusqadii haddii alla idmo. marka waxaa jirta nusqada way kala duwanta waxoogaa yaryar waan arkayay inay u dhexayso aniga middaa aan wato kuwa kale ayaa waxoogaa yar dheeri kale ah laakiin wixii markaas ay ku kala duwan yihiin dhib malahan wax aada u yaryar weeye waana muqadamada yartaa mooye ma aha kitaabka ma aha. waxay dhaheen culammadii qaala almu'alifu wuxuu yiri raximah bismi illaahi raxmaani raxiim bismi llahi ilahi magaciisaan ku bilaabanaya allah soo arraxmaani naxariis badan allah soo arraxiimi naxariis badan. qaala almu'alifu wuxuu yiri raximahullahu ilaahay ha u naxariistee wuxuu yidhi haadaa dikru bayaani caqiidati ahli sunnati waاljamaaca calaa madhabi fuqahaa'i ilmillati abi xaniifa nucmaan bni haabit alkuufi wa abi yuusuf yacquub ibni ibraahim alansaari wa abi cabdillaahi maxamed ibn xasan ashaybaani ridwaanullaahi calayhim ajmaciin wamaa yactaqiduuna min usuuli iddiini wayadiinuuna bihi lirabbi alcaalamiin. mualifka wuxuu yiri raximah llahu tacaala qaala bismi illaahi ilahi magaciisaan ku bilaaban allah arraxmaani naxariis badan allahaasoo arraxiimi naxariis badan. qaala almu'alifu wuxuu yiri raximahullah mu'alifka allah u naxariistee wuxuu yidhi haadaa kan dikru bayaani caqiidati ahli sunnati waاljamaaca jamaacada iyo sunnada ahalkoodii caqiidadoodii la cadaynteeda wey cadaynteedii la sheega wey waxaa weeye dikru bayaani caqiidati ahli sunnati waاljamaaca waa sunnada iyo jamaacada ahalkeedii. sunnada hadda waa taqaan jamaacaduna waa saxaabadii nebiga iyo raggii raaco wan wanaagsanaa iyo wixii sii raaco dhan baa la yidhaahdaa oo dariiqaa ku taagan baa la yidhahdaa jamaacada iyaguna. marka sunnada iyo jamaacada dad ahalkoodii kuwa u saaxiibka ahaa muctaqadkoodii muctaqadkaas cadayntiisii oo la sheego wey calaa madhabi fuqahaa'i ilmillati diinta fuqahadeedii madhabkoodana lagu sheego. fuqahada markaa shiikha 3 shiikh ayuu sheegahayaa maadaama shiikhu ay madax xanafiyado isagu ka mid ahaa laakiin ha sheegee
fuqahaa ulmilla kuwa kalena waa lamid oo waa isku raacsan yihiin, waxay ku kala duwan yihiin iska yar. markaasuu yidhi sheikha abi xaniifa ah annucmaan ibni thaabit ahaa alkuufiyi magaalada kuufa loo nisbeeyey, iyo wa abi yuusuf ah abi yuusuf yacquub ibnu ibraahim ahaa al ansaariy ansaar loo nisbeeyey, iyo wa abi cabdillaahi maxamed ibn alxasan ashaybaaniy reerkaa shaybaan loo nisbeeyey, ridwaanullaahi ilaahay raadli ahaashadiisa calayhim aimada korkooda ha ahaato ajmaciina dhammaantood ajmaciina. wuxuu yidhi wamaa yactaqiduuna, wuxuu yidhi ma ogtahay waxaa weeye wamaa wa calaamaa kii lagu hadlo wey yactaqiduuna ay ictiqaadinayeen min usuuliddiini diinka asaladiisa ay ka ictiqaadinayeen, oo wayadiinuuna bihi ay ka diin yeelanayeen maaga lirabbi alcaalamiina makhluuqa allaha iska leh ee ay uga diin yeelanayeen. wuxuu yidhi sheikha waxa kan halkan lagu sheegayo waxaa weeye caqiidadii ahlusunna waljamaaca in maaragtaa caddaynteeda la xuso, madhabka fuqahada lagu sheego madhabkii fuqahada lagu socdaa. fuqahadaasna waa fuqahadii diinta, waa abi xaniifa wey. abi xaniifa taabici weyaa layidhi, taabiciintuu ka mid yahay. labadan sheekh oo kalena waa labadiisii arday, waa abu yuusuf sheekha caamkaa faqiiha ahaa yacquub ibnu ibraahim alansaari, iyo abi cabdillahi maxamed ibnu xasan ashaybaani waa imaamkii isagana xataa imaamkeena sheekh shaafici raxmatullaahi calayhi mashaa'ikhdiisau ka mid ahaa, waa imaamkaas salafigaa wey. markaasuu yiri mashaa'ikhdaas madhabkoodii ayaa lagu sheegayaa buu yiri caqiidada waxay ilaahay subxaanahu watacaala ay ka ictiqaadsanaayeen iyo rusushiisa. marka abu xasankaasu ashaybaani shaybaan loo dhisbay ridwaanullaahi ilaaha ka raallahday calayhim aimada dushooda ajmaciina xaalayhim ajmaciina dhammaan. wuxuu uri wamaa iyo wamaa wa calaamaakii la xusa wey yactaqiduuna aimadaas ictiqaadinayaan oo min usuuli diini diinka usuushiisa oo wayadiinuuna bihi maaga lirabbi alcaalamiina makhluuqa rabbigiisa ayee uga diin yeelanayeen, wixii ilaahay ay diin uga dhiganayeen ilaahooda la hortegi lahaayeen. waa saas. marka imaamku raggaasuu sheegay maxaa yeele isaga waan horaan u sheegno xagga furuucda sheikhu xanafi buu ahaa. marka iyagana khaas kuma ahane waa muctaqadu ahli sunna saan hadda hore ugu soo sheegnay. waa sidaas. marka wuxuu yihi rabbilcaalamiinkay uga diin yeelanayeen, waa waxay diin ka dhiganayeenoo abaalmarin ilaahay uga dalbaayeen. wuxuu yihi marka sheikhu naquulu fii towxiidillaahi muctaqidiina bitowfiiqillaahi ina allaha waaxidu laa shariika lah. saasaan leenahay. wuxuu yihi sheikhu naquulu waxaan leenahay fii towxiidillaahi ilaahay towxiidkiisa waxaan ku leenahay buu yidhi muctaqidiina xaal aan naha kuwa ictiqaadinaya bitowfiiqillaahi ilaahay waafajintiisa ku ictiqaadinaya ina allaha waaxidun laa shariika lah. saasaan leenahay bu wixii aimadaas uu kasoo guriyo halkaa ku sheegaya. wuxuu yihi sheikha naquulu waxaan leenahay fii towxiidillaahi ilaahay towxiidka waxaan ku leenahay towxiidku sheikhu ka bilaabo maxaa yeelay mukalafiinta waxaa laga raba waxaa weeye ilaahi subxaana watacaala waxdaaniyadiisa wa faclam annahu laa ilaaha ila allah ayaa ilahi yihi subxaanahu watacaala wamaa arsalnaa min qablik ilaa rijaalan. ilaahi subxana watacaala wuxuu yihi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ilaa yuuxaa ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun. wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi ilaa nuuxii ilaa yuuxaa ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun. hortaada ma aanan dirin rasuul ilaa waxaa loo waxyoonayay ilaahi subxaana watacaala alla waaxid inuu yahay oo aniga kaliya caabuda uu ilahi leeyahy subxana wataala. sidaas ayaa nebi walba loo waxyoonayo nebi walbaaba cibaadadaas ayuu maaragta ummadda amraya ilaahi subxaana watacaala in loo khaalis yeelo cibaadada oo aan lala wadaajin. marka towxiidka ayaa laysku bilaabayaa wey towxiidka ayaa laysku bilaabaya.
sidaasoo kale ilahi wuxuu yidhi was'al man arsalnaa min qablika min rusulinaa ajacalnaa min duuni araxmaani aalihatan yucbaduun. man arsalnaa waxaad su-aashaaho adiga hortaada nebi allow oo rusushayna ah allaha raxmaanka sukadiisa bal ilaahyaal la caabudo inaan yeelno wey. rasuul ilaahay subxaanahu watacaala waxa la caabudaya sheegay ma jiro. cibaadada in ilaahay loo waxido, ilaahay in la waxido subxaanahu watacaala, sidaas weeye. marka sidaasuu sheikhu tawxiidka uga bilaabo. allahu lmustacaan. wuxuu yiri sheikha marka anagoo ictiqaadinayno tawfiiq alle ku ictiqaadinayno. marka wuxuu sheikhu kuu sheegayaa ictiqaadka wanaagsan waa waafajin ilaahay subxaanahu watacaala mooye wax oo laa bixawlinaa walaa quwatinaa toona ma aha, waa waafajin ilaahay subxaanahu watacaala. marka muctaqidiina xaalanna waxaa kaloo dhihi kartaa wahuwa tawxiidkaasna bitawfiiqillaahi ay bitawfiiqin min allaahi, waafajin ilaahay xaggiisa ka ahata ayuu ahaa. waxaan leenahay marka ina allaha allah xaqa lagu caabud waaxidun allaha kaliya wey, laa shariika shariik mid la wadaagsadaa lahu lilaahi ilaahay uma sugnaanin subxaanahu watacaala. waa sidaas. marka shirkiga noocyaashiisoo dhan baa meeshan lagu anfinayaa in daatada alle loo shariig yeelo. ilaahay subxaanahu watacaala in daatadiisa loo shariig yeelo oo maalanba laba ilaah la sheego sidii qolada majuusta ay dhaheen caalamka laba saanic u leeyahay ay dhaheen oo kufriga ah, iyo cibaadada la muto in ilaahay loogu shariig yeelo oo ashirku fi luluuhiyati wey, ashirku fi daati sida raggaas labada ilaah sheego oo kaloo gaalada ah oo majuusta ah, iyo ashirku fi luluuhiyati waa la diidaa isagana in cibaadada cid kale loo sugo oo aan alla ahayn subxaanahu watacaala, taana waa la diidayaa wey. oo sidii nimankii reer quraysheed ku dhacday oo kale taasna kaasna waa la anfinayaa, waa isaguna shirki. waxaa jira oo kale iyaduna shirki kaleo isagana ah al-ishraak fi suura waاljismi wasaa'iri sifaati lmuxdathiina. ilaahi subxaanahu watacaala in maxay ahayd tale suuro iyo jismi iyo wax saasa loogu shariig yeelo sidii nimankii yahuudda oo ilaahi subxaana watacaala bashar ku sheegaya amba ilaahayabaa meel fadha in qofka uu aaminsan yahay wax noocaas oo caqiida xumo ah, sidii qof boqorho sidii meel iska fadhiyo kale oo ilaahay ka ictiqaadinayo subxaana watacaala, oo niman mujasima ay ku hoobteen oo ilaahay subxaana watacaala xibno sidii bani aadamka oo kale loo sheego oo qof caadiya dadka ay u aaminaan. qaybtaa kale laftirkeeda ishraagaasna waa la diidan yahay. marka wuxuu yiri sheikha waxaan leenahay ina allaha waaxidun laa shariika lah, waxaan ictiqaadinayna waa sidaas fuqahaulmillana aan kasoo guurinayno. marka insha allahu halkaasaan ku joojinaya. wabillahi towfiiq, wasala allahu wasalama wabaarak calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. maanta wax badan